reerkii isaga ahaa waxay bilaabeen inay muslimiintii weeraraan muslimiinta haddeer iyagoo meelo badan ardaydii muslimiintu meelihii ay ku tukanayeen jaamacadihii baa la weeraraya sidii ayaanti dhaweyd aynu arkaynay loo weeraray gobolkii Michigan propagandadoodii markay socon weyday they're getting desperate reerkii iyaga ahaa please like Sara the weakest link dadka the weakest link baa la weeraraa ma garanaysaa and in this case the weakest link waa Soomaalida marka waxa bilaamatay Soomaalidii in si ilgaara lagu eego beriyahaaba waxa socday wax la yiraahdo ma garanaysaa waxaad arkaysay in ay damacsan yihiin ma garanaysaa manufacturing consent oo Soomaalida si gaar ah yaa si loo bartilmaameedsado si gaar ah loo xagxaganayay cid waliba mistakes way samaysaa cid waliba criminal way leedahay waliba communitiesku markay cusub yihiin waxyaabo khaladaado badan way galaan Soomaalida si gaar ah ayaa il gaar ah loogu eegaya waxa soo dhamina waxay tilmaamaysaa in la doonayo in si gaar ah loo bartilmaameedsado oo Soomaalida loo weeraro oo ma garanaysaa just to inay de muslimiinta dhibaan ma garanaysaa Soomaaliduna for some reason dadku they're fascinated with Somalis si gaar ah ayaa Soomaalida loo eegtaa oo always na meel walba I don't know dadan iyo daalacan baa la yiraahdaa dadka qaarna dadan dhasheen qaarna daalacan Soomaalidu daalacan bay dhasheen xumaan iyo samaan waxaynu samaynaaba waa muuqataa and we do a lot of good laakiin labaduba aad bay muuqdaan waliba xumaantaasi muuqata hadda waxaan tusayaa and because dadka kale they try inay highlight garayaan xumaanta ma garanaysaa hadda fiiriya look at this gabdhaha yaryar waa wada Soomaali look at this is so beautiful check this out hi my name is Asma and I'm a therapist so my name is Asma and I'm a therapist look at this is so beautiful hi my name is Rayan and I'm a director of service navigation mashallah hi my name is Tijan and I'm a master's student and future medical student I don't know gabadhaas inay Soomaaliyeed tahay laakiin I'm a maternity nurse laakiin Soomaali bay u badan yihiin hi my name is Rowaida and I'm a 7th grade I think we're all Somali hi my name is Adham and I'm a public health nurse hi my name is Rufeda and I'm a production graphic designer hi my name is Warcha and I'm a marketing student hi my name is Ashraf I'm a NICU and public health nurse mashallah look at that beautiful marka waa sida Soomaalidu waa dad brilliant ma ogtahay hadaynu waliba sida aynu brilliant u nahay xataa duqmaheena meelaha farfadhiya waa dad aad iyo aad smart I think mid iyo laba mooyaan inta kale waa Soomaali I think the majority waa Soomaali baan u malaynaya and mid iyo laba possibly inaanay Soomaali ahayn anyway Soomaalidu waa dad cajiiba weeye meel walbana way ka muuqdaan laakiin dadku waxaad moodaa inay aad isugu dayaan inay ma garanaysaa the xumaanta Soomaalida always ay uga shaqeeyaan inaguna dad isu kaadiya manihin runta hadii la doonayo ma garanaysaa oo iyadoo aynu aragno in indhihii oo dhami ina soo eegayaan oo laynagu soo maqan yahay inaad isiyara nabto waa okay wayba kula yaabayaan Soomaalida haddaad tiraahdo isiyara nab tartiibso u kaadi because Soomaalidu waa sida reerkaas oo kale waa very entitlement achieve baynu leedahay waxba igama gelin oo kale I'll do whatever I want That's not how things work. Ma doonaysid indhaha bini'aadanka inaad isku soo jeedisid. Anyway, waxaba la soo waa kan odaygii wuxuu soo qoray tweet uu leeyahay Soomaalida wayn magaaladaas iyada ah weerar bay Soomaalida dhibaato badan bay ku hayaan gobolkaas Soomaalida wayn aynu iska qabanaa. Ya waa kan sugaan idin tusay and this is very scary waa kan Trump says he's terminating legal protection for Somalis. Wakan. Shalayto wuxuu soo wakan. Kanu soo qoray. Tweet kanu soo qoray shalayto. Yeah. Wuxuu yiri Minnesota under Governor Walt is a hub for fraudulent money laundering activities. I am as President of the United States hereby terminating effective immediately the temporary protection status TBS program for Somalis in Minnesota. Somali gangs are terrorizing the people of that great state. And billions of dollars are missing, send them back to where they come from. It's over, President Donald J. Trump. Okay. Yeah. Under Governor Walt, ninka Governor Brasabka, and xukuumaddiisa Minnesota, Soomaalidu gobolka waxa weeyaan dhicid tuugnimo iyo ma garanaysaa qalalaasi ayay ku hayaan gaangiskoodu farabaas bay ku hayaan dhibaato badan bay dadka gobolka u geysteen and as the president of the United States na waxa iga go'an inaan terminate gareeyo wuxuu soo gabagabeeyay protectionkii temporary-ga ahaa ma garanaysaa dadka aan sharciga lahayn for example oo kale
de maadaama wadankii weli qalalaasi ka taagan yahay de ilaalinayay inay sii joogaan laakiin ay u qoran tahay in la deport garayn karo chanceka ugu wanaagsan please like iska saara fiidyaha TBS-kii ayuu terminate gareeyey waatan waxa lasoo haddaad aragtaan inanteennii ilhaan sida loo weerarayo weerar cir iyo dhul ah ayaa lagu soo qaaday waa kan iyadii lagu bartilmaameensanayo look waxay samaynayaan waa ku masaafurinaynaa look waxay ku samaynayaan ilhaan look ya ice baa ku kaxaysanaysa daasay hayaan ilaahay ha inaga qabto laakiin soomaalidu isu turi mayso inay yara kaadsadaan way fiicnaan lahayd waa kan inankanoo si fiican uga hadlaya ayaan idin tusayaa muxuu ahaa cabdi iftiin waa kan xalay ilaa maanta dalka maraykanka qodobka ugu weyn oo la hadal haayo horta waa soomaali wuxuuna ku saabsan yahay Donald Trump oo xalay soo dhigay bartiisa bulshada in uu dib oo la laabanayo ama gebi ahaan uu joojinayo wax loo yaqaan termination barnaamijka TPS Temporary Protected Status muxuu barnaamijkan waa idin sharxi doonaa xawaaladaha lacagta laga diro maraykanka ku yaal Soomaalida ee leedahay iyo Soomaalida lacagta dirto iyo wixii because waxa ugu badan ay leeyihiin waxa weeyaan millions and millions and billions ayaa ku noqota wadanka isaga ah marka sidaynu soo afjar lahayn waa inaynu because waxay fangaraysaa kulaha al-shabaab waa been ma fangaraysa dad masaakiina loo diraayo laakiinse iyagu de waxay ka dhigayaan inay al-shabaab fangarayso it's very scary miyaa ku soo socoto wallahi inoo waa dul mari doonaa sidoo kale si guud ahaan Soomaalida ku nool maraykanka nafsadooda maxalis ayaa ku soo socoto maadaama Trump ereyadu uu dhaho dadka asaga taageersan ee toos u qaataan hadduu qof dhaho qofkaas hal isoo qabto waa la soo qabtaa hadda hore waxaa jirto Trump waxaa lagu haystay maxkamad lagu soo saaray waagii asaga uu tartamay asaga iyo Biden ay tartamayeen oo uu lahaa hal aado Washington January 6 loo bixiyay maxkamad lagu soo saaray dambi lagu helay Donald Trump uu noqday marka ninkan afku wuxuu ka dhaho dada qaato I don't think so I don't think cid qaadanaysa inay jirto hadda sidii hore looma jecla nabad dadka kuwa nabadda xil saaran wiilkan cabdi iftiin baa la yiraahdaa he's also a writer mashallah he's brilliant wada Soomaaliyeed ay maanta la fadhiyaan way shirayaan Soomaalida waxaa la leeyahay is ilaaliya is jira gawaarida kaamirooyinku xirta had iyo jeeraalane meelaha halista ah oo dadka Trump taageersan yaalaan xaqiiq waayahay horta dhibkan wuxuu ka bilowday nin inkaar qaba ah ayaa wuxuu soo qoray maqaalkan oo maalin iyo bar ka hor la soo daabacay maqaalkan hadda ujeedaan maqaalka wuxuu leeyahay lacagtii la haday oo dad Soomaaliyeed u badnaayeen ay hadeen waa Minnesota barnaamijka loo bixiyay Feeding Our Future iyo sidoo kale lacagaha guud ahaanba Soomaalida ay diraan oo Maraykanka laga diro Soomaaliya loo diro lacagtaas qaarkeed oo bilyanaa dollar ah waxay gacanta u gashay ama u gashaa al-shabaab Soomaalida waxaa lagu soo eedeeyay al-shabaab reerka magaca leh baa fangareeya Soomaalida Maraykanka gaar ahaan kuwa Minnesota ayaa lagu soo eedeeyay oo maqaalku ku eedeynaya in Soomaalida ay fangareeyaan argagixisada Soomaaliya joogta ee al-shabaab maqaalka horta Trump arrinta uu xalay soo dhigay taas oo soo baxay maqaalkaas uu soo akhriyay bilyanaa lacag ah maqan oo Soomaalida ay dirto Soomaaliya loo diro lacagtaas qaarkeedna oo Maraykanka laga dirayna waxay gacanta u gashay al-shabaab sheekada markay meeshaas joogto waxa reerkii baa ka dambeeya waxaan rabaa muuqaalkan yar oo arrinkan hadda ka sheekeynayo Minnesota television Minnesota ku horta inay idin fasaxo Reports Minnesota taxpayer dollars are ending up in the hands of the Al-Shabaab terrorist network. waxaan oo dhami markaad eegto it's waa manufacturing consent waxa la sii diyaarsanaya waa been wararkii baa sii bilaabay waa la isu sii gudbinayaa maqaalada la qoraya wararkii TV-ga baa laga soo deynayaa baryahanba way socotay waxaan oo dhan waxa la yiraahdaa manufacturing consent waxa la sii diyaarsanaya waa sidii Soomaalida loo weerari lahaa ee Soomaalida loo dhibaateyn lahaa ee investigation loogu furi lahaa sharciyada looga qaadi lahaa ayaa la sii diyaarsanaya A source in the U.S. Attorney's Office tells us they don't have an exact dollar amount, however, says, quote, Al-Shabaab controls much of Somalia. Kasokow lacagta la diray iyo argagixisnimada lagu eedeynay dadkan wuxuu kaloo leeyahay Trump xalay uu soo dhigay gaangistaro Soomaali ah ayaa dadka Minnesota nafta u keenay waa gaangistaro Soomaali u dhashay oo Minnesota joog ayaa dadka nafta u keenay laga nasan laayay
sidaas awgeed ayaan iyo Waqtiyan weyn aqriyay. ee la diray ergeysa faraw intaas ayaa igu soo tuulay asaga inaan dib oo la laabto temporary protector statuska Soomaali ka badan 700 oo qof oo dalka Mareykanka degan 425 qof oo ka mid ah dadka 700 Soomaalida ah Minnesota joogo ay barnaamijkaas TPS ay ku joogaan TPS waa barnaamij Soomaalida ay isticmaalayso muddo 30 sano waxa loogu talagalay dadka dalalkooda aan dib ugu laaban karin amni xumaa jirto dhibaato jirto waa dadka aan sharciga lahayn ama sharcigii laga qaaday Soomaalida badankeedu ilhaanba waxay soo qortay waxay tiri good luck ma garanaysaa with that because the vast majority of Somalida inteeda badani waa dad American citizen because Soomaalida sharci bay ku soo wada galeen badankoodu dadka ugu badan ee hadda bilaa sharcigi waa dadkii darbiga ka soo booday and iyo dhowr qof oo sharcigi lagala noqday for example yartii walaashay oo kale sharciga waa laga iyadoo wali green card haysata ayay ma garanaysaa dee naga carartay oo suuqa gashay oo dhibaatooyin you know gashay marka waa laga cancel gareeyay sharcigi marka dadkaas oo kale waxa weeyaan TPS bay ku joogeen marka dadkii waxa la sugayaa anytime waa la masaafurin karaa laakiin qaarkoodna way sii shaqaysan karaan qaarkoodna ma shaqaysan karaan laakiinse wadankay sii joogi karaan maadaama aanay wadankoodii dhibaato ka jirto marka haddeer already Xasan Sheekh baa baryahan oo dhan ba lahaa dadka Europe xataa ku lahaa noo soo celiya dadkayagii please like Sara dadkayagii noo soo celiya annaga dadkayagii diyaar u ah because waxa xogaa lacaga hadii la bixiyo ku soo dhamgareeya wadanka weey ma garanaysaa marka anyway taasi dhib badan ma laho dadku ma badna 700 oo qof kama badnaanayaan dadka Mareykan sharci la'aanta ama sharci xumada ku jooga ee Soomaalida ah laakiin anigu taan ka baqayaa waxa weeye baaritaan in lagu furo Soomaalida dadka u dagaalami jiray dadkan soo galowga ah waxay ahaan jireen dadka reerka Koonfur looyarada iyo judgeska iyo dadkaas oo dhan iyo dadka ma garanaysaa dadka kale xaqooda u dagaalamay iyaga ugu badnaa haddeerna dadka ugu badan ee dagaalka kugula jira waa iyagii marka cid ku dagaalanta heli maysid ma garanaysaa the Department of Civil Rights ki xataa ku dagaalami maayaan marka everybody haddeer isaga hoostiisu tegay ma garanaysaa consolidation of power wax la yidhaahdo sameeyey war cid walba ay isaga haddeerto hoostimi oo kale uu awoodihii oo dhan uu isku qurdudumsaday oo hoostiisa geeyay ma garanaysaa marka maadaama haddeer dagaal gaara muslimiintii lagula jiro dadka ugu badan sida gaarka loola dagaalamayo waa dadka muuqda because muslimiin badan oo kale ma muuqato muslimiintu adduunkoodaas iska dhex galeen ma garanaysaa yaa tallaabadaad qaadaba waa lagu ilaashanayaa maaha inaad qiil u samayso ma garanaysaa marka just anu waxaan odhan lahaa dadka Minnesota jooga kala carara wallahi it's better in meelaha kale la kala dego oo ma garanaysaa meelahan because meeshan waxa weeyaan ay dadku ku badan yihiin waa lagugu ilaashanaya waa lagugu calaamadsanaya wuxuu doonayaa inuu ku furo ma garanaysaa anyone oo programka Medicaid lagu qabto ama dambi ka gala fraud systemkaas in sharciga dib loogala noqdo yaa marka anu waxaan odhan lahaa kala guura wadan waxaynu joognaa ballaaran oo waxaynu joognaa ma garanaysaa 50 wadan ah don't concentrate hal area ha wada degina iskaga kala carara meeshaas I know hadda eeg haddii la iswada waro xataa carruurteennii baa isdilaysaa yaa carruurteennii baa xataa isdilayso isilaashanaysa because meel kasta iska helaan Soomaalidu for some reason si xun bay isu influence gareeyaan dhanka wanaagga iskama influence gareeyno wiilal yaryaroo waxa weeyaan aad yaabaysid fiicnida oo iskuulkoodii tagaya oo dantoodii garanaya oo shaqaysanaya ayaa xataa ugu badan oo la ilaashadaayo la dilaa oo kuwo kaloo luusariinhii ay dilaan shaydaan baa isku itixaamay Soomaalidii meel walba haddana iyagii baa isu muuqda haddana il gaarana waa laynagu eegayaa waa inaynu kala cararno I think dani waxay inoogu jirtaa inaynu kala cararno ilaahayna ma badan inaynu isdul saarnaano waynu isgalaafanaynaa sidan